casharkan ugu horeeyay ayaanu qaadanaynaa koorsatan ahayd in buug lagu qori karo 30 maalmood ama 30 maalmood inay macquul tahay in buug lagu qori karo. horeysa aan uga sheekaynay waxaynu dhahnay in koorsada cilmi ahaan horta aan barano xirfada tan sida buugga loo qoro horta inaan barano waa ka horeysa inaynu 30 maalmood ku qorno marka 30 maalmood waa noo dambeynaysa insha Allah marka labada cilmiba waa isku darsan doontaa hadii Ilaahay yiraahdo koorsada tan marka ay noo dhamaato. marka su'aasha ugu horeysa horta maskaxda isweydiinta badan waa maxay is it possible fast ma macquul ba in arrinta tan lagu guuleysan karo in aad buug qori kartid ma macquul ba ma waxay qaadanaysaa marka su'aalaha qof markii uu dhaho ma macquul ba qofku sometimes wuxuu isweydiin waxa laga yaabaa hadda inaad dhowr jeer hore isku daydo inaad buug qortid haddana in lagu niyad jabiyo ayaa laga yaabaa oo lagu dhaho buug ma qori kartid macquul ma inaad buug qortid marka waa su'aalaha aan rabnaa ka jawaabno ma waxay qaadataa years to write a book dadka qaybtood waxa laga yaabaa inay aaminsan yihiin in ay sanado badan qaadatay in buug la qoro sidaa daraadeed waxa laga yaabaaba in aad jeclayd inaad buug qortid ama aad qortid meeshaad ka mari lahayd horta inaad weyday waa macquul oo taa dhimala waynu ku baranayna halka kan labo waxa laga yaabaa inaad waxun iska malmaloogi lahayd laakiin haddana in lagu yiri macnaha de buug sanado u baahan tahay in loo camalaado u baahan tahay waxay u baahan tahay buug maartay markii la qorayo in maartay aan wax kala qaban wax noocaas oo kale in laga dhaadhiciyo marka xaqiiqdu waxa weeye buugga qofka ay ku xiran tahay sanado ma qaadan kartaa mise ma qaadan qofka ay ku xiran tahay iyo waxa qoraysi example hadii qofku waxa uu qorayo uu garanayo cilmi ahaan waxaan wax uu fahansan yahay uu yahay shaqo badan aysan ka sugayn qofku markuu researchkiisa 2 bari 3 bari ku soo samaysto ayuu in yar oo kooban ku qori karaa muddo kooban ku qori karaa qofku bil buu ku qori karaa hal bil buu ku qori karaa 6 bilood buu ku qori karaa qof hal sano ku qori karaa su'aashu waxa weeye intee buu gelinayaa waqtiga weeye bil markan qorayo book waqti baan gelinayaa fiican ka badan 6 bilood waxa laga yaabaa space inuu dhaxeeyo oo maanta markaan wax qoro la bariyo kala hadaan raba aan waxba qorin maalin kale wax qoro adigu ka saa wado sanad markay taa wax laga yaabaa chapter markaan dhameeyo inaan dhowrkii bilood bil nasto wuxun saasoo kala yani markii lagu leeyahay bookgan sanad baa la qoray dadka qaybsada waxa laga yaabaa inay moodaan bookgan okay 2 sano buuggan la qorayay marka 2 sano qofka meel fadhiyo oo aan ka kicin saama ah 2 sano oo executive ah qofka haduu qoro buug waxay qaadanaysaa dhowr kun oo page buu noqon lahaa buuggaas marka buugta hadda inta badan 2 sano la qorayay lagu leeyahay waa buugga soo dhaba 200 oo page ama 300 oo page ku wareegaya 2 sano wax la mid ah dadka qaybtood ay dhahan waa qorayni marka xigmadu waxa weeye qofkani waqtigiisa iyo sidoo chance ugu hayo ay ku xiran tahay haddii adiga aad chance aad haysid oo chance kaas bishaas aad ogoshahay waqtiga aad badgaliyay in bisha ku dhameeysid bisha waa ku dhameyn kartaa hadday tahay 6 bilood in aad u qiiqaysid waqtiga ayr hadba wax siga qortid waad qori kartaa sanad waa ku qori kartaa 2 sanad ku qori kartaa marka xigmadu waxa weeye arrinta tan waa khalad ah in ay qaadatay years to write a book kuma xirna sanado in la qoro asalba fikradda noocaas hortu waa inaad maskaxdaada gelisid inaysan sanado qaadan taa marka meel baan isla soo saarnay waxaynu u gudbinaa qodobka labaad laakiin waqti dheer ma qaadataa way su'aasha markii la isweydiinayo haa waa qaadataa way su'aashu way qaadataa waqti dheer way qaadataa buuggan la qoro oo see u qaadanaysaa sax bil been badhahay waa lagu qori karaa see waqti dheer waxay u qaadanaysaa bishii aad qoraysay time fiican baad gelinaysaa waqti fiican baad gelinaysaa example waxa laga yaabaa 4 hours 5 hours inaad aad wax qoraysid 5 hours a day ama 4 hours a day ina wax qoraysid baa laga yaabaa halka markaad 1 year wax qoraysay aad maaragtay maalintaas oo dhan at least 10 minutes ama 1 hour wuxuun aad wax ka qortid ayaa laga yaabaa inta kale la adigu aad iska warwaraysi iyo meela iyo aad ku jirtid soo marka waxay qaadan kartaa maxaa la yiraahdaa time baad gelinaysaa meeshan time buu ka rabaa sacrifice bay ka rabtaa yani inaad wax u hurtid ayay ka rabtaa cost time kan 4 hours kan waxba ku qaban jirtay hadaa rabtid balka inaad bil ku qortid buugaas yani waa inaad time gelisid oo u hurtid waqti aad u ogolaatid marka waqti inaad u ogolaatid ba halka aad uga baahnanaysaa hadii la yiraahdo marka long time way qaadanaysaa long time kaasi kaba dhigna inuu dhowr bilood noqonayo long time oo de maantaas inaad 5 hours gelisid ku dhufo 5 hours steady ku dhufo waqti badan baa soo baxaya 5 times steady waqti badan baa soo baxaya marka waxaynu helaynaa marka
boqol iyo konton 5 marka saas oo kale marka inoogu soo baxaysa marka conceptiga marka waxaan rajaynayaa inaad maaragtay aad fahantay ayaan rajaynaya waa hagaag marka insha allah haddii ilaah yiraahdo waxaa kaloo jira su-aasha kale oo meesha inoogu xigta ah you can't become a writer many times dadku waxay kuu sheegayaan qoraa ma noqon kartid qoraa ma noqon kartid ayaa lagu leeyahay qoraa ma noqon kartid oo qoraa maxaa u noqon waaye qoraa maxaa u noqon waaye qoraa maxaa u noqon waaye waxaa lagu leeyahay adiga hadalkaadu ma fiicna adiga hadalkaadu soomaali khatara ma taqaanid ama adiga maxaa la yidhahdaa ma tiidnin ama qof maxaa la yidhahdaa khatar ah oo balaa ah oo si fiican wuxuu maaragtay meesha ugu sarreysa gaaray oo PhD haysta marka dadka sometimes ku niyad jabinayaan niyad jab baa lagugu ridaya waxaa lagu qofka hadduu PhD haysta alxamdulillah jaanisyo fiican buu sii haystaa wax badan oo ka hadli kara ayuu garanaya haddaad masterate haysatid wax fiican oo jaanis weeye laakiin ma ahan inaad haysatid shahaadooyinka ugu sarreeya inaad buug qortid qasab maaha haddaad fikraddii haysid fikrad muhiima oy tahay in wax laga qori karo oo nidaamka iyo systemka aad garanaysid waxbaad qori kartaa waa sax qofku macnaha wada waa lagu kala fiicnaan karaa opportunitieska buugga aad qortay muxuu noqon karaa way su-aasha suuqa seebuu ka noqon karaa haddii aad conceptiga aad haysid uu yahay wax gadmi kara sida ugu fiicanna loo dhigo waa lagu guulaysan karaa marka uma baahnid inaad maaragtay lagu dhaho you can't become a writer haddii aad jeceshahay inaad noqotid waad noqon kartaa adiga unbaa isu diidi kara adiga unbaa isu ogolaan kara haddii adiga dhahdid waa noqonayaa waa noqonaysaa waadna ku dadaalaysaa insha allah haddii ilaa yidhahdo kadibna waad keenaysaa haddii ilaa yidhahdo laakiin adigu haddii aad dhahdid ma noqon karo markaa adiga unbaa niyadda iska dilay inaadan noqon karin waa hagaag arrinta kale oo muhiimka ah waa maxay su-aasha kaloo la isweydiinaya waa maxay years sanado badan waa inaan sugaa marka why wait for years macnaha sababta aynu u sugayno sanado badan maxay tahay yani qofku wuxuu leeyahay buuggan haddii la rabo in la qoro waa in sanado badan la sugaa dhowr sano la sugaa su-aasha isweydiiya dhowrka sano maxaa u sugayaa sax buugta qayb baa qaadan karta dhowr sano in la qoro example waxaaba rabtaaba inaad wuxun physics-ka la xiriira inaad qortid xun ka mid a ama concept ka mid a conceptiyada adagoo physics ka mid a so marka adiga physics maba taqaanid ba ka soo qaad anigoo kala tahay oo physics baran macnaha haddii physics takhasuskiisu ahayn markaasaad physics-ki marka maxaa u banaanaysaa inaad wax ka qortid marka hore horta inaad physics baratid marka labaad waxaa u banaanaysaa inaad wax soo aruurisid research samaysid marka saddexaad inaad muddo waxaaba yeerkii sanadkii buugga aa qoraysay 1 year almost waxa kaa qaadanaya inaad adigu waxaan fahantid kaa dhaadhacaan kadibna waxaan erayada ugu macaan oo lagu fasiri kara aad ku fasirtid kadibna aad markaa aad buuggii qoridiisii ayr u wadid yani almost conceptiga adag marka wax aad sugaysid oo sanado aad sugaysid waa inay tahay wax macna ku fadhiya sababa u sugaysa sanadku inuu jiraa sample waxbaa rabtay waxbaa research kaaga xirnaa qof baa wareysanaysay qofkii baa weyday ama qof baa maaragtay wareysi ka qaadi lahay biography buuggaadu ahaaba kaba soo qaad taariikh nololeed buu ka hadlayay buuggaadu qofkii baad weyday qofkii baad sugaysaa oo dhowr biloodba kadib soo noqonaya baa la weyday dhowrkaa bilood waxbaa sii farsamaysatay saasaa ku sugtay sugidda sida waa in macno ku jiraa dadka qaybtooda wax moodayaan haddii la sugo in wax la helayo waa in sugiddan macno ay ku jirtaa markaas aad macnaha maxaa la yidhahdaa wixii sugidaada waa inay wax soo kordhinayso sample lacag baad meel gashatay $100,000 waxaa lagu yidhi bishii waxaa kugu darsamaysaa $1,000 therefore what do you do haddii aad sugtid bil walbe maxaa kugu darsamaya lacag baa kugu darsamaysaa so marka waa sugi kartaa sugid baa meesha ku jirta 10 sana sugaysa haddaad rabtid si lacagtaas kugu kordho laakiin haddii lagu dhaho ka waran lacagtaas xaggaa lacag $100,000 meel dhig oo iska sug ama somehow maxaa la yidhahdaa wuxuun iska sug haddii lagu dhaho ka waran hadda maxaa u sugaysaa wey su-aasha maxaa u sugaysaa waa in macno meesha ku fadhiya backup baa u dhiganaysaa farsamo u samaysanaysaa waa in wixii macno sameeya marka muhiimadda waxa weeye uma baahnid inaad sanadaha sugtid haddii aad timekaada balangaraysid systemkaada dejisid nidaamkaada fariisid
waxa weeye waqtigaada si efficient ah u isticmaali kartaa sida ugu fiican oo uga faa'iideysan kartaa waqtigaada. arrinta kale oo keeni karta inaad buug qortid ama possibility-ga macquulnimada inaad buug qortid waxaa muhiim ah self motivation inaad is siisid. waa inaad adigu naftaada aamintid diyaarna u tahay shaqadatan inaad qaban kartid. shaqadan hadday aad aaminsan tahay inaad qaban kartid insha allahu way ku guuleysanaysaa haddii ilaahay yiraahdo guul baadna ka gaaraysaa. intaas marka insha allah waxaanu ku maxaa yiraahdaa aynu kusoo gabagabaynay qaybtii ahayd macquulnimada insha allah macquulnimada inaad buug qortid. marka insha allah wixii ka dambeeya qaybta waxaynu u gudbi doonaa waxyaabihii farsamooyinka ahaa ee buugga qoridiisa la xiriira ayaynu insha allah usii gudbi doonaa haddii ilaahay yiraahdo. aad baad u mahadsantihiin.